السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسنا قيرت صاحبada aan nahay soo dhawaada waa mid kamid ah muuqaalada aan ku baahiyo barteeda YouTube-ka isla markaana waxaan uga hadli doonaa sida markaasi fudud ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ugu fududahay ayna ku tagi karaan mid kamid ah wadamada dhaca bartamaha qaaradda Yurub waliba wadamada kala ah wadanka Austria iyo sidoo kale wadanka France waa walaalkiina Azam hadii uu yahay markaagii ugu horeeyna soo booqday fadlan nagu soo biiro YouTube-ka subscribe noo saar muuqaalkana noo share garay soo dhawaada saaxiibayaal mar kale muuqaalkani ayaan waxaan xoog ku saari doonaa muwaadiniinta Soomaaliyeed oo heesta baasaboorka Soomaaliga Kenya iyo Ethiopia sidee ay ku tagi karaan mid kamid ah wadamada dhaca qaaradda Yurub gaar ahaan wadanka Austria iyo sidoo kale wadanka France ayagoo markaasi jooga sidoo kale wadamada dariska aan nahay gaar ahaan wadanka Kenya Ethiopia iyo sidoo kale dalka Uganda muwaadiniinta Soomaaliyeed oo heesta baasaboorka Soomaaliga ayaa aad uga adkaa inay helaan mid kamid ah wadamada yaryar ee dhaca qaaradda Yurub kaasoo ugu horeeyay wadanka Romania, Bulgaria, Poland iyo sidoo kale wadanka Belarus haddaba waxaan halkaan aan idinkula wadaagi doonaa sida fudud ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ku heli karaan fiisaha dalka Romania isla markaana ay ugu talaabi karaan mid kamid ah wadamadaasi gaar ahaan wadanka Austria iyo sidoo kale France dawladda dalka Romania ayaa taariikhda markay ay ku beegneed 9 bisha 12 waxay markaas ay daafurtay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay dalkaas ay ku tagi karaan fiisaha dalxiiska isla markaana ay joogi karaan wadankaasi ilaa 3 bilood ayadoo dawladda taas micnaheedu ay ku fasirtay inay doonayso in dad yu badan oo markaas dalxiisayaal ay soo dhaweyso isla markaana wadanka dib ay ugu laabtaan arintaasi ayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed farxad gelinaysa taasoo ay fursad weyn ay ugu dhigayso inay ka sii talaabaan wadankaasi ayna sii gaaraan wadamada kale ee Yurub ay dhacaan haddaba qofka haysta baasaboorka Soomaaliga ayaa fiisaha dalxiiska wadanka Romania u xareysan karaa isla markaana uu tagi karaa meelaha safaaradda ay ku leeyihiin gaar ahaan wadanka Ethiopia, Kenya iyo sidoo kale wadanka Djibouti haddii aysan markaasi u joogin wadamo ay safaaradda ay ku leeyihiin sida dalka Uganda iyo Soomaaliya wuxuu u xareysan karaa sid markaasi oo electronic asab kuma aha qofka inuu joogo meelaha ay safaaradda ay ku leeyihiin balse waxa qasab ah qofka dokumentiyadiisa inay dhameystiran yihiin ama ay yihiin kuwa markaasi uu fiiso uu ku heli karo haddii muwaadinka Soomaaliga ah uu helo mid kamid ah fiisooyinkaasi ay bixiso dawladda Romania gaar ahaan fiisaha dalxiiska waxa aad u fudud inuu markaasi u talaabo wadamada kale ee markaasi dariska ay la tahay ee wadanka Romania gaar ahaan wadanka Austria sidoo kale France iyo wadamada kale ku hareeraysan isla markaana uu doonayo inuu dib iskaga dhiibo wadamadaasi uu sharci u raadsado haddaba muwaadinka Soomaaliga ee doonayo inuu fursadaas u ka faa'iideysto maxaa haboon inuu sameeyo intoona u mari karaa haddii aad tahay muwaadin Soomaali oo rabo fursadaas inuu ka faa'iideysto waxa shardi ah koow inaad marto shuruudaha loogu talagalay fiisaha dalka Romania waxaana ugu horeeya koow inaad haysato baasaboor dhicitaankiisa ka dhiman 2 sano iyo wax ka badan inaad haysato bangi statement adiga aad leedahay kaasoo caddeyn buuxda u tahay inaad bangigaaga lacag ay ku dhextaasho ama lacag badan ay martay taasoo safaaradda ay kugu siin doonto shuruuda kale ee qofka loogu baahan yahay inuu qaato fiisaha dalka Romania ayaa ah inuu booking gareysto mid kamid ah hotelada ku yaala magaalada ama caasimadda Bucharest ee dalkaasi Romania taasoo ay ku fududeynayso inaad fiisaha si degdeg ah ku hesho waxa qasab ah fiisaha inaad sugto 2 toddobaad gudahooda isla markaana ay kugu siin doonaan fiisaha dalkaasi ee midda waliba dalxiiska ah haddii aad hesho fiisaha dalxiiska